بسم الله الرحمن الرحيم kulanti wanaagsan daawadayaal waa ayaana geedii afraxo idinla socodsiinaya wararkii ugu dambeeyay arrimaha Soomaaliya iyo caalamka qodobada aad wadanka TV ku daawan doontaana waxa kamid ah sirta ugu weyn ee ka dambeeysa in ciidamada dawladda federaalka laga saaro Dhuusamareeb 6 meelood oo ay madaxda maamul goboleedyadu ay uga egyihiin hogaamiye kooxeedyadii fashilmay aqoonyahan yahuud ah oo sheegay sababta ay Masar uga aamusan tahay boobka cusub ee lagu qaadanaya daanta galbeed gabadhayda u qaada kiradii aad igu lahayd arrin ceeb ah oo Suuriyaanka ku haysata Turkiga iyo danjiraha Shiinaha ee Soomaaliya oo safar ku tagaya Hargeysa qodobadaas iyo qodobo kale ayaad wadanka TV ku daawan doontaan taariikhdu waxa ay ku beegan tahay 9 Luulyo 2020 iminkana u diyaar garooba qodobada warkaas oo fidsan haddii aad nagu cusub tahay daawade subscribe saar wadanka TV oo program baleelka si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada wararka tayada leh aynu halkaan idin soo gelino haddii saaxiibadeena nagu tixana ka mid tahay la wadaag saaxiibadaada kale si saaxiibadeena cusub uga mid noqdaan like-tan ha naga hilmaamina aan ku bilaabo marka hore dhaqanka burcadnimada ee dunida loo yaqaan mafia qarniyo badan buu ka soo jiray dhulka Talyaaniga waxaana jiray xilliyo aan dalkaasi dawlad laga aqoon ee uu u qaybsanaa qoysas burcada dhaqanku waxa uu ahaa nin baa qoyskiisa haddana qabiilkiisa ururiya oo hubeeya una adeegsada inuu qoysaska iyo qabiilooyinka kale ay soo boobaan haddii uu awood yeesho dad aan qoyskiisa iyo weliba qabiilkiisa ahayn baa ku biira oo uu ku wada shaqaysta isaga oo ah wax loo yaqaan mafia boss amaba hogaamiyaha burcadka dadku isaga ayay u shaqeeyaan oo dadka ay u soo dhacaan una soo laayaan isaguna waxbuu siiyaa mafiyada kalena ka ilaaliya cidda ka hortimaada amaba la loolanta waxa ay kula dhaqantaa argagixin iyo qaarajin dhaqankani waxa uu weli ka jira dalalka hormaray badankooda sida Talyaaniga Mareykanka iyo Japan waana cidda ka shaqaysata dhammaan waxyaabaha sharcigu uu xarimay sida dhaca qaarajinta maandooriyaha hubka iyo weliba ka ganacsiga jirka iyo wixii la mid ah waa cadowga ugu adag uguna halista badan ee dawladaha sharcigahi ay kula jiraan dagaalka gudaha kooxaha mafiyadu dhexdooda aad bay u loolamaan oo isu gumaadaan si ay u kala qabsadaan suuqyada xaaraanta marmar kale danahooda ayay ka shiraan oo heshiis ay dhigtaan shirarka waxa ay ku qaabsadaan meelo qarsoon oo aan ciidamada amnigu aysan ka arki karin hogaamiyaha burcadkani weliba ciidankiisa ayuu soo kaxaystaa oo ilaaliya laakiin dalalka aan lahayn dawlad sharci ah amaba faasidka ah mafiyada lagama yaqaano waayo dadka dawladda sheeganaya qudhooda ayaa ku jira kaalintii mafiyada oo sameeya waxyaalihii ay samayn lahayd sidaa darteed dadka dhulalka Soomaalida haysta ee dawladaha sheegta dhammaantood waa mafiya kolkii laga reeba in cagjar iyo farmaajo kan ugu weynina waa ina Cumar Gele hogaamiyaasha burcadda qoysaska ah ee gobolada Soomaalida haysta waxa ay ku shirayaan deegaanada ay haystaan mid ka mid ah oo ah Galmudug haddaba kol haddii ay burcad yihiin waxa ay amreen inta ay shirayaan in ciidamada dawladda ee sharciga ah gobolka laga saaro iyada oo nin walba hay wato ciidankiisa mafiyada ah waa tahay dhanka kaleetana waxa magaalada Dhuusamareeb isugu tagaya madaxda sare ee ku magacaaban gobolo aanu jirin mid si buuxda u maamula walow ay waxooga ay kala roon yihiin waxa kulankani oo lagu sheegay wadatashi uu ka mid yahay shirar kale oo ay hore u yeelan jireen maamulada kuwaas oo aan marna mir dhalin markii aad eegto xaaladda Soomaaliya waxa aad dareemaysaa inay shacabku intii hore ay ka bisil yihiin oo ay la xad ay dareensan yihiin waxa ay tahay in la sameeyo nasiib xumase shacabkaasi ma laha rabitaan iyo cod ay ku sameeyaan go'aanada madaxda sheeganaysa in ay maamusha meelaha ay shacabkaasi ay ku nool yihiin waxa ayna madaxdaasi bedelkeeda ay dabaqaan siyaasadii hogaamiye kooxeedka ee fashilantay Soomaaliyana fashilisay ee loogu bixiyay magaca ah failed state madaxda maamulada oo dhan eedda ma laha oo waa isdhaaman yeelkadeedii haddii sawirka guud la eego siyaasaddu waxa ay ku biyashubanaysaa midii hogaamiye kooxaysiga hogaamiye kooxeedyadu 98% kama baaqan jirin shir loogu yeero weliba shirarku waxa lagu qaban jiray dibadda maamulada qaar waxa aad dareemaysaa inay aad ugu ololeeyaan in uu shisheeyuhu dhexboodo arrimaha Soomaalida waxaana xasuusanaa degmo ka tirsan Soomaaliya oo wasiir dibadeedka Itoobiya ee hore lagu yiri adigu damaan qaada ka noqo heshiiskan ay gaarayaan wiil iyo hooyadii soo markii meesha la wada seexay isagana waxa uu seexay meeshii ugu dambeysay hogaamiye kooxeedyadu inta badan ma lahaan jirin fal curin siyaasadeed oo ku salaysan in laga shaqeeyo wanaagga iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed waxa uu kala tarjumi jiray dad kale mar bay dhacday in laba hogaamiye kooxeed ay diyaarad wada raaceen iyaga oo
dibadda u socda waxa ayna sheegeen inaysan xitaa issalaamin balse shirka ku xiga ee uu dal kale u qabto waa wada joogeen maamulada qaarkood waxa ay sitaan dhaqankaasi hogaamiye kooxeedyadu waxa ay siyaasadba u fahmeen reer hebel oo reer hebel lagu ligo kadibna maleeshiyad ay iyagu samaysteen ayaa jili jiray dagaal lagu sheegaya beela diriraya nasiib xumo beelaha la sheegayo in ay dirirayaan dagaalkaasi raalli xitaa kama aha danina uguma jirto balse hogaamiye kooxeedkooda uma sheegi jirin inuu naarta aada keligii oo iyagu uu ka leexdo maanta nuucaas ayaa taagan oo walow maamul goboleed lagu sheegayo ninbaa keligii jeebka ku sita meeshii aan doono ayaan hub iyo xoola u raadsanayaa midkood baa ku faanayay hogaamiye kooxeedba sababta u soo baxay markii aad magiciisa dhuuxdo waa unug siyaasi ah oo keliya jiiraysa markii aad ummadda la qaybiyo oo la isnacsiyo mid baa maalin ku idhi maxaad u diidan tahay inay ummaddu midoodo suuye halkan ayaan wax ka nahay haddii ay soomaalidu isu timaado waan ku dhex dhumayaa markaas ayaan ku idhi ka waran waxaa imaan doonta in aad ku dhex dhunta soomaali oo wada dhunsane maadaama aan ku bilownay shir jacaylkii hogaamiye kooxeedyada misna boqolkiiba boqol diyaar uma ahayn in ay fuliyaan waxa lagu heshiiyo heesaha soomaaliyay tooso iyo ha noolaato kadib halkaasi ayay ku ekaan jirtay waayo ujeedku maba aha in wax hore loo socodsiiyo taas ayaana keenaysa khilaafaadka madhalayska ah ee maalin walba taagan tusaale shirar hadda ka hor la qabtay waxaa lagu heshiiyey qaybsiga khayraadka misna maalmo kadib waxaan maqlayey maamuleh lama taaban kara khayraadka gobolkayga waayo laguma heshiinin hogaamiye kooxeedyadu waxay caan ku ahaayeen isugufaanka tiknikada taasoo markii laga reebo inuu midba sidii xaabad dagaallo micno darro ah ugu shida dhallinyarada beeshiisa oo ah kuwa ay ku dhacaysa khasaarada ugu badan si uu kursiga dhiigga leh ee xaafaddiisa ugu fadhiyo aan dalkana ka difaaci jirin nacab shisheeye iyo weliba nacab sokeeye toona maanta waa sidii oo kale waxaa wiil qori uusan ku difaacaynin xadka Soomaaliya ee bad iyo beriba isla qaloocinaya ee maanta dhuusamareeb taagan waa tirabeel ugu dambeyn waxaanay wada tashi iyo tala ummadeed ma aha sidoo kalena shaqada maamulada ka mid ma aha in ay shirar fooda ah qabtaan in ay doorasho heer qaran ah qoondeeyaan iyo in ay qalalaaso siyaasi ah abuuraan waxaa loo igmaday waa in ay iskuul isbitaal biyo jidad buundooyin warshado shaqo u sameeyaan gobolada ay joogaan balse shacabka Soomaaliyeed ayaa looga baahan yahay in ay xasuustaan casharadii hore oo aanay aqbalin in mar kale aayahooda kubad lagu ciyaarin waa tahay bal markaana arrimaha bariga dhexe laba toddobaad ka hor wasiir dibadeedka Urdun Ayman al-Safadi ayaa isagoo dayuurad kuwa qumaatiga u kaca ah saaran waxa uu booqasho ugu tegay madaxweynaha maamulka Falastiin ee Mahmoud Abbas oo ku qaabilay madaxtooyadiisa Ramallah sida uu qoraya Times of Israel yeelkeeda dhigiisa Masar Sameh Shoukry ayaa isna la marti qaaday ujeedkuna waxa uu ahaa in sawirka lagu arko laba deris carbeed ee Falastiin oo garab taagan Abbas oo wajahaya Israa'iil oo si cad u sheegaysa in ay qaadan doonto xitaa madaxtooyada uu fadhiyo ee daanta galbeed Masar iyo Urdun oo dagaalo badan la galay Israa'iil waxay markii dambe la galeen heshiisyo rasmi ah balse waxa ay labaduba ballan qaadeen in ay sidii doonaan qadiyadda Falastiin balse markii ay Israa'iil la bareertay in ay bargoosato daanta galbeed waxa sawirkaasi ka maqan Masar oo la iminka ka aamusan arintani maqnaanshiyaha Shoukry waxa ay tusmeynaysaa mowqifka Masar ee ku aadan qorshahan ay Yuhuudda wadato iyadoo noo sheegaysa in arintani Falastiin aysan hadda kadib wax micno ah oo buuran ugu fadhiyin Masar waxa jira arrimo uga daran Masar oo haatan hor yaala xasarada corona iyo weliba joogta dhaqaale uu u geystay dalkaasi oo ku tiirsan dalxiiska faragelinta Turkiga ee ka socota dalka ay Masar xadka ugu dheer ee la leedahay ee Liibiya iyo biyo-xireenka Itoobiya oo halis ku ah ammaanka qowmiga ee Masar oo aad u tirsata dhibco kasta oo ka soo horta wabiga Niilka waxaasi oo dhanba Masar uga daran in Falastiin la qaato ayuu yiri Ofer Winter oo xiriirka Masar iyo Israa'iil u daraasadeeya macadka daraasaadka ammaanka qaranka ee Tel Aviv waxaa jira dalal carbeed oo 8 dal gaaraya kuwaas oo soo saaray cambaareen afka baarkiisa ah iyadoo aan horey u sheegnay in ay sidaasi u sheegeen isla Israa'iilta ay cambaareenayaan maanta waa taa dhanka kaleetana ololayaal madani ah ayaa bilaabay in ay ka dhiidhiyaan qoysas faqri ah oo Siiriyaan ah oo hablahooda yaryar ku dardaraya niman Turkish ah si ay halkaasi uga helaan wax xoogaa kaash ah oo ay koronaha u kaashadaan amaba xitaa kirada guriga ay isaga bixiyaan sida lagu qoray The Independent oo ah dallad ay ku midaysan yihiin ururo ka shaqeeya la dagaalanka in carruurta jinsi ahaan looga faa'iideysto ayaa sheegay inay dhibaato dhaqaale oo ku dhacday qoysas Suuriyaan ah ay sabab u tahay arintani Ezgi Yaman xogayaha guud ee Turkey ayaa yiri waxaan
waxaan maqalnay kiisas ay qoysas Suuriyaanihii gabdhahooda iibinayaan iyagoo wax guur lagu sheegaya ku siinaya niman atraak ah si toosa iyo weliba si dadbanba si ay mararka qaarna uga dhigtaan xaasaska labaad amaba saddexaad. ujeedku waa inay ugu yaraan hal qof culayskiisa qoyskaasi ku aadan ay qaadaan. waxay kaloo sidaasi ay ku helayaan waxoogaa qarash ah oo ay kirada isaga bixiyaan, ayuu raaciyey, isaga oo sheegay in ay badan yihiin qoysaska ninka ay guriga ka degan yihiin ku yidhaahdaa gabadheenna u qaada kirada aad nagu leedahay. waxaa kale oo jira gabdho qadaamad ahaan ugu shaqeeya qoysas Turki ah oo la kulma addoonsi iyo weliba meelkadhac jinsi ah, guur qarsoodi ah iyo wixii la mid ah, kuwaasoo aan inta badanna la sheegin amaba laga hadlin. Turkiga ayaa waxa uu hoy u yahay qaxooti caruureedka caalamka ugu badan, iyadoo bishii Abriil ay halkaasi joogeen 4 milyan oo qaxooti ah oo 3.6 milyan oo ka tirsan Siiriyaan yihiin. ugu dambeyn, danjiraha dalka Shiinaha ee Soomaaliya Ambassador Qin Jian ayaa lagu wadaa inuu socdaal ku taga caasimadda Somaliland ee Hargeysa, sida uu waddanka TV ogaaday. safarka danjiraha ee Somaliland ayaa daba socda xiriirka iyo heshiiska cusub ay kala sixdeen Somaliland iyo Taiwan, kaasoo dowladda Shiinuhu ay si weyn ay uga carootay. Shiinaha ayaa si adag uga hor yimid xiriirka labadaasi dhinac, isagoona ku tilmaamay wax aan la aqbali karin, isla markaana xadgudub ku ah jamhuuriyadda dadka Shiinaha, sida uu waddanka TV ogaaday. Ambassador Qin Jian ayaa kulamo la yeelan doona madaxda ugu sarreysa Somaliland, gaar ahaan madaxweyne Muuse Biixi, oo uu kala hadli doona mowqifkooda ku aadan xiriirka Taiwan. Qin Jian ayaa si rasmi ah Somaliland u gaarsiin doona diidmadooda ku aadan in xiriir diblomaasiyadeed lala sameeyo Taiwan, oo iyadu sheegata in ay tahay dal ka madax bannaan jamhuuriyadda Shiinaha. safarka Jian ee Hargeysa ayaa qayb ka ah dadaalada ay Beijing ay ku weeqayso iskaashiga Taiwan iyo Somaliland, oo iyadu laftigeeda ah maamul ka tirsan Soomaaliya balse ku dooda madax bannaani aan taageero ka haysanin beesha caalamka. Somaliland iyo Taiwan ayaa iyagu dhowaan si wada jir ah u sheegay in diidmada Shiinaha aysan waxba ka bedeli doonin iskaashigooda, walow aan si rasmi ah loo ogeyn halka uu ku dambeyn doono xiriirkaasi cusub. qodobkaasna wuxuu u dambeeyaa warkii waddanka TV. intii aynu ka gaarayna warkayaga xiga waxaa inkaga tegaynaa gul iyo gobonimo.